Haddii aad tahay hooyo uur leh oo doonaysa in ay bisha Ramadaan ay soonto, talooyinkan waxaa dhici karta mid ka mid ah inay ku anfacdo. Magacaygu waa Raxmad Eeman. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. Talooyinkayga waxa ay ku socdaan hooyooyinka awooda ee doonaya in ay soomaan bisha Ramadaan iyaga oo xaamilo ah. Hooyooyinka kale ee aanan awoodin waxaan Ilaahay ka baryanaa inuu ajarna uu siiyo una fududeeyo hadduu Ilaahay yiraahdo. Balse mar waliba Ramadaanka haddii aad awoodi karto waxaa wanaagsan inaad soonto, waayo waa diinta qaadashadeeda aad ayay u fududahay, laakiin saa u bixiso dad badan ayay ku adag tahay. Waxaa wanaagsan haddiiba aad awoodi karto in aad soonto. Talada ugu horeysa ee aan ku siinayo waxay tahay in aad booqato dhakhtarkaaga si aad u soo hubiso labo meel. Midda koowaad waa HB-gaaga ama nooca dhiigaaga, waayo HB-gaaga hadduu zaaid low u yahay waxay adag tahay inaad hadhow si fiican aad u soonto. Midda labaad, miisaanka uurjiifkaaga, gaar ahaan haddii 7 biloodba aad ka weyn tahay, in miisaanka uurjiifkaaga aad hubiso. Qodobka labaad, in aad sii qorsheyso waxyaabaha aad doonayso in aad ku afurto, waayo la mid ma tihid hooyo dadka caadiga ah ee sooman ee afuraya. Adiga ma ku anfacayaan waxyaabo badan ay dadkaas isticmaalayaan. Waxaad u baahan tahay cuntooyin ku caawinaya, maadaama maalinka idil aad gaajoonaysid uurjiifkaagana uu ku jiro, uu kula qaybsanayo waxa aad cuntay oo aad ku afurtay. Waa inaad sii qorsheysaa maxaad ku afureysaa, qaab noocee ayaad wax u cunaysaa, maxaa cunaysaa, suxuurtoo kale maxaa ku suxuuranaysaa. Sidoo kale wax walba ma cuni kartid, waayo waxaa jiro waxyaabo bakhur kuu keenaya ama kugu siyaadinaya bakhurka. Cuntooyinka saliidda ay ku badan tahay, kuwa dufanka leh, waxyaabahaas oo idil waa inaad ka feejignaataa oo aad sii qorsheysaa waxyaabaha aad ku afuri doontid ama aad ku suxuuran doontid. Talada saddexaad aan ku siinayo waxay tahay markii aad seexan rabta agteeda inaadan wax adag aadan cunin. Tusaale ahaan, adigoo rabta inaad markaas sariirta tagto, daqiiqado ka hor inaadan casho fuul ah oo badan aadan cunin. Xilliga aad casheynayso iyo xilliga aad seexanayso inay waqti u dhexeyso ugu yaraan 30 daqiiqo oo kale. Talada afraad aan ku siinayo waxa ay tahay inaad cabto ama aad ku dadaasho intaas aad afuran tahay ee bacdal afur inaad isticmaasho biyo badan, inaad biyo badan aad cabto. Meesha aad cunto adag oo badan aad ka cuni lahayd, in aad biyaha badsato, sida furuudka shiidan oo kale, inaad furuud shiidan oo badan aad isticmaasho. Talada shanaad aan ku siinayo waxay tahay inaad suxuurta aad ku dadaasho, inaad suxuurato oo aad soo kacdo salaada ka hor, kadibna aad suxuurato, waayo maalintii idil ayaad baahnaa rabtaa. Habeenkii inaad cashadii ay kuugu dambeyso oo afurkeeda kale aad ku gaarto way adag tahay adiga oo xaamilo ah. Waxaa wanaagsan in aad suxuurtii soo kacdo oo aad suxuurato, sidoo kalena aadan ku suxuuranin waxyaabo suugo ama dufan leh sida baasto iyo suugadeeda ama maraq wax leh inaadan isticmaalin, oo aad isticmaasho waxyaabo ku anfacaya oo maalintaasna aad wax ka faa'iideyso. Sababtoo ah dufanka ku jirto saliidda suugada waxa ay kugu kicinaysaa bakhur, maadaama maalinka idil aad baahnaa rabtid. Mar alaala markaad suxuurato waxa ugu dambeeyana ka dhigo galaas caano ah iyo biyo caadi inaad cabto. Caanaha waxa ay dejinayaan ama inta badan ay yareeyaan bakhurka. Waxaa jirta suxuur aniga aan tijaabiyey, adigana laga yaabo inay ku anfacdo, taas oo aan bakhurna kugu kicinaynin, kuna caawinaysa aadna kuu anfacaysa. Hadduu Ilaahay yiraahdo waa idinla soo wadaagi doonaa insha Allah. Qodobka kale oo aan kula wadaagayo ama talada kale ee aan kula wadaagayo waxay tahay in xilliga afurka aad ku afbilaabato ama marka ugu horeyso aad isticmaasho waxyaabo nafaqo leh sida furuud oo kala qaro aad jarjaratay inaad isticmaasho, ama shurbad iyo wixii lamid ah inaad ku afbilaabato oo aad ku afurto. Haddii aad tahay hooyo nuujinayso, waxaa wanaagsan ama talada aan ku siinayo waxay tahay in xilliga nuujinta aad ka dhigato wixii afurka ka dambeeyo ilaa duhurka wixii ka horeeyo, oo aadan duhur wixii ka dambeeyo aadan nuujinin. Habeenkii oo kale waa caadi iyo subaxii hore, laakiin duhurka wixii ka dambeeyo baahi zaaid ah ayaa ku qaban doonto, energy-gana wuu kaa dhamaanayaa. Dhallaanka aad nuujinaysidna nafaqo badan kaama helayo, marka duhurka wixii ka horeeya inaad nuujisid ayaa wanaagsan. Sidoo kale iska yaree oo ha badsanin cuntooyinka saliidda lagu shiilay sida sambuuska iyo wixii lamid ah,
ugu dambeyn waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. Haddii aad horey noola joogtayna waan kaaga mahadcelinayaa.